Bismillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici, golaha wasiirada iyo dhammaan shaqaalooyinaha qaranka. Intaa ka bacdi magacaygu waa Ayaan Saleebaan Nuur, ahna gudoomiyaha ururka hablaha aragga naafada ka ah ee Tafbalan Girls loo soo gaabiyo TBG. Maanta taariikhdu tahay 2020 bishii 7 14-keedii aniga iyo tiimkayga waxaan ku suganahay xafiiskayga ku yaala dalka Somaliland magaalada Hargeysa. Intaa ka bacdi waxaan u taaganahay aniga iyo tiimkayga taakuleynta garab istaaga caruurta iyo haweenka aragga naafada ka ah ee lagu ilaaway guryaha saan uga soo saari lahayn guryaha caruurta iyo haweenka bulshadana ugu soo dhaxtari lahayn. Intaa ka bacdi waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka ururka Tafbalan Girls. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Xamdi Cabdi Sogsog, waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka ururka hablaha aragga naafada ka ah ee Tafbalan Girls. Ururkan muddo badan muu shaqaynayn, balse wuxuu shaqaynayay muddo 10 bilood ah. Waxqabadyadayadii oo bilow ah waxaan nala kulmay cudurka saameynta dunida ku yeeshay ee COVID-19. Dhaqdhaqaaqyadayadii iyo waxqabadyadayadii saameyn kuma yeelan, waanu ka soo gudubnay. Balse waxaa jira waalidiin uu ku yeeshay saameyn dhaqaale. Markii aan isku tagnay ee aanu tashanay, waxaanu ku go'aansanay inaanu ka saacidno dhinaca dhaqaalaha waalidiinta haysta caruurta aragga naafada ka ah. Ciidii aynu soo dhaafnay ee Ciid al-Fitri waxaanu ciidsiinay 20 caruur oo aragga naafada ka ah. 10 caruur oo jooga magaalada Hargeysa iyo 10 caruur oo jooga xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco. Ciidan waxaanu go'aansanay ciidan inagu soo food leh ee Ciid al-Adha waxaanu jeclaysanay inaanu sii laabno caruurtii aan la farxaynay ee caruurta aragga naafada ka ahayd oo aanu la ciidno intii aynu ciidii hore ciidsiinay laabkood. Annagoo ugu talagalnay inaanu ka farxino 50 qof oo isugu jira haween iyo ubad aragga naafada ka ah. Halkaanu ciidii hore ka booqanay 2 gobol oo ahaa gobolka Togdheer iyo gobolka Maroodijeex. Ciidana waxaanu jeclaysanay oo aanu rajaynaynaa oo qorshahayaga noogu jirta inaanu ka farxino 4 gobol oo ka mid ah gobolada Somaliland sida gobolka Togdheer, Gabiley, Saaxil iyo Maroodijeex. Annagoo markii hore qorshahayagu ahaa inaanu 5 gobol ciidan ka farxino oo aanu la ciidno, markii kharashkayagu isu kala gaari waayay waxaanu jeclaysanay inaanu ciidan ku soo koobno 4 gobol. Insha Allah sida ciidan iyo ciidii horeba farqiga weyn ugu dhaxeeyo ayaanu rajaynaynaa ciidaha soo socdana inaanu uga laabno. Sidoo kale waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan waalidiinta haysta caruurta aragga naafada ka ah iyo dhammaan bulshada reer Somaliland inay nala soo xiriirsiiyaan cidii ay arkaan ee ah caruur iyo haween aragga naafada ka ah, iyagoo nagala soo xiriiraya barta aan ku leenahay Facebook iyo YouTube-ka oo laga heli karo macluumaadka iyagoo dhameystiran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Saada Maxamed Cabdiraxmaan, kana mid ah ururka hablaha aragga naafada ka ah ee Tafbalan Girls. Waxaanu halkan uga mahad celinayaa waalidiinta dhashay caruurta aragga naafada ka ah. Caruurta aragga naafada ka ah nala soo xiriirsiiya haddaan u baahno noo keena. Runtii markaan guryaha ku booqano si qurux badan noo soo dhaweeya oo gacmo furan iyo qalbi furan ugu soo dhaweeya. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa kuwa sida tooska ah ugu xidhan ururkayaga mar kastaba anaguna aanu wixii aanu ku tari karayno ku tarno ayaan aad ugu mahad celinayaa. waxaa kaloo nu mahad celinayaa walaalaha kale ee iyaguna garab ka taagan ee araga qaba dalka gudihiisa iyo dibadiisaba oo runtii hiliyahooba nala garab taagan hadii aanan iyaga haysan lahayn waxba noomay socdeen oo maaragtay garab maanaan heleen waa walaalo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ku kala sugan runtii aad baan ugu mahad celinaynaa mar walba waa garabkayaga ilaa iyo maanta iyo ilaa intii uu ururkaasi bilaabmay wayna soo garab taagnaayeen
waxaa kaloo si gaar ah ugu mahadcelinayaa walaalaha kale ee iyaguna sida gaarka ah noola shaqeeya ee mar walba iyaguna hil iyo hooba nala garab taagan ururka iyaguna aanu la-aantood dhaqaaqeen haddii aan iyagu nala wadi lahayn waayo anagu waxaan nahay dad aragga naafo ka ah oo u baahan mar walba in la garab qabto runtii waanu helay alxamdulilah rabbilcaalamiin dadna garab taagan baanu helay waana nuu mahad celinaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa in maalin aan maanta ahayn allah subxaanahu watacaala uu ka abaalmariyo anagu abaalkooda ma gudi karno aan ugu mahad celinayaa ururka khayriga ah ee alnuur charity fadhigiisu yahay qadar hargeysana ka howlgala runtii waa ururka hadda kontonkan qof ama kontonkan caruurta iyo haweenka isugu jira runtii doorkan ciidsiiyey aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa waayo howl weyn ayay naga kafeeyeen runtii oo waanu ku faraxnay alxamdulilah rabbilcaalamiin iyaga ayaa hawshii dhaqaajiyey aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay ilaahay halka aad ka soo saarteen wax khayr qaba ha idinku bedelo ayaanu leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsantiin aad iyo aad baan u salaamaya asalaamu calaykum Thank you.